السلام عليكم halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada haddii aad jeceshahay horumarkeena fadlan channelkan subscribe inoo dheh kuna xirnaan goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad waad ku mahadsan tahay booqashadaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha naga mudan meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub muuqaalkeena waxaan maanta insha Allah kaga hadli doonaa waxa loo yaqaan recycle bin-ka iyo qaabka kala gedisan ee loo isticmaalo horta marka hore recycle bin-ka waxa uu ka tirsan yahay shanta icon ee loo yaqaan standard iconiska kuwaas oo ah iconada kamid ah sidii dhammaan kombiyuutarada noocyadooda kala duwan recycle bin-ka waxa uu qabtaa dhammaan kombiyuutarada laga soo tirtiro kombiyuutarka uu kaydiya recycle bin-ka waa kan falaarta imika ay dul saaran tahay haddii aan furno gudihiisa waxa ku jiro dhammaan faylashi laga soo tirtiro kombiyuutarka wax kasta la soo tirana halkan ay u soo galayaan qaybo kala gedisan ayuu leeyahay afartan shay ayaa la isticmaalaa tan maxay u qaabilsan tahay recycle bin-ka waxay u qaabilsan tahay in recycle bin-ka dhammaan wixii ku jira oo dhan la tirtiro haddii aad ku dhufato waxay ku saaraysaa ma hubtaa in aad si joogta u tirto labadan shay ee ku dhex jirto recycle bin gudihiisa haddii aad yes dhahdana way tiraysaa haddii aad no dhahdana way ka noqonaysaa qaybtan labaad waxa ay idmika ku soo bandhigaysaa recycle bin-ka qaabka uu u shaqeynayo tusaale hadda qaybtan ku qoran tahay D iyo qaybtan C waa labada qayb memory computerka loo qaybshay partition ka qaybtan waa partition oo qaybtan ayaan ka gooyay oo partition ay u tahay kanna waa maskaxda computerka haddii aad u baahan tahay wax kasta oo laga soo tirtiro labadan inay si toos u soo galaan recycle bin-ka amarkaas kore aad ku shaqeynaysaa haddii aad u baahan tahay wax kasta oo laga soo tirtiro labadan qaybna inay recycle bin-ka ayna soo galin oo si toos kaga baxdo computerkana qaybta labaad ayaa dooranaysaa bal iminka aan eegno qaybta labaad waxay qabataa qaybta labaad marka aad click siiso kan koowaad hadda ku dhufanay waa qaybtaas cimo ku qoran wax kasta oo cimo laga soo tiro si toos ah halkan uma soo aadi doonaan waxay ka tirmi doonaan dhammaan computerka si dhaqsi ah markaas haddii aad ka dooratay apply dheh okay sidoo kale local diskiga haddii aadna u baahanahay wax kasta oo aan ka tiro inay recycle bin-ka soo aadin asna kan hoose ayaad ku dhufanaysaa don't move files to the recycle bin remove files immediate when deleted oo macnaheedu yahay faylasha halkan recycle bin-ka soo aadin si toosa si dhaqsi leh waxaad kaga saartaa marka la tirbo computerka kaas kadib waxaad dhahdaa apply kadibna okay dheh iminka arag wax kasta oo aan tiro si toos halkan ugu soo dhici doono tusaale waxaan dirayaa wordkan markii aan delete dhaho si toos uma soo aadi doono recycle bin-ka aan tijaabino recycle bin-ka fur waxaad arkaysaa kaliya un inay ku jiraan labadii shay ee hadaawo ku jiray balse haddii aan sidiisa hore kusoo celiyo oo aan ka dhigo custom size waxay kusoo noqon doonaan sidii caadiga ah labadaba custom size ka dhig okay bal iminka maxaa dhici doona iminka waxaa dhici doona wax kasta oo aad soo tirto si toos waxay usoo aadi doonaan recycle bin-ka tusaale kan aan tijaabino delete ayaan leeyahay iminka waxaad arki doontaa recycle bin-ka inay ku jiraan saddex shay kadibna waxaad arkaysaa iminka inay yihiin saddex shay inay iminka ku jiraan gudihiisa marka qaybta recycle bin properties waxaa laga bedelaa hadba faylasha aad tirayso iyo dhammaan xogta aad soo tirayso inaad kala doorato qaabkii aad u kala xukumi lahayd ama in lagu kaydiyo oo recycle bin toos ay kugu aadaan ama inay sidaas uga baxaan computerka marka aad fiiriso qaybtan hoose ay ku taalo display delete confirmation dialog waxaa lagu talagalay in maxaa la soo muujiyo sanduuqa yar ay ku qoran tahay delete marka aad tiraysid wuxuu ku soo bandhigayaa sanduuq yar oo kuu sheegaya inaad iska hubiso shayga inaad tiraysay in kale marka haddii aad tig saartana waa lagu soo bandhigayaa markastoo aad wax tirayso aad tijaabino okay dheh tusaale banaanka recycle kaga bax tusaale waxaan rabaa inaan tiro kan oo kale folderkan marka aan click siiyo oo aan delete dhaho waxaa ii soo baxay sanduuqaas weyn marka sanduuqaas weyn ayaa ku soo baxay kaas oo ku leh ma hubtaa inaad rabto in folderkan aad geyso recycle bin-ka haddii aad rabto yes haddii aad rabina no
markasta aad wax tirayso in sanduuqa lagu soo bandhigo waxay ka mid tahay waxyaabaha recycle bin-ka uu la gaar yahay. haddii aad rabtana waad iska dhaaf kartaa sanduuqa, haddii aad rabtidna sanduuqa waad soo bandhigi kartaa. waad aragtaa recycle bin-ka waxaa soo gala sanduuq faylkii aan si toos ah u soo tirnay. oo kale haddii aad u baahan tahay in aad ka qaado sanduuqaasna halkii aad ku noqonaysaa tagta ayaad ka qaadaysaa markaana maxaa dhici doona wax kasta oo aad tirto laguma weydiin doono wax sanduuqa ama ogeysiis laguma siin doono si toos ayaa loo tiri doonaa. tusaale haddii aan tiro kan oo kale markaan delete dhaho la ima soo bandhigi doono sanduuq iyo ogeysiinaya inaan hubo inaan recycle bin-ka u diro. markaad delete dhahdo khalaas si toos ayuu recycle bin-ka u aadi doonaa shayga aad tirtay. qaybtan kale waxay qabataa wax loo yaqaano restore all items, in dhammaan itemyada meeshan ku jiro dhan oo imika 5 item ah halkan hoos ayay inta badan ku yaalaan inta shay ku jirto wax loo yaqaano recycle bin-ka. 5tan item inaan dib u celiyo meelihii aan ka soo masaxay haddii aan u baahanahay hal mar inaan dhammaan wada celiyo waxaad taabanaysaa qaybtan oo qoran tahay restore all. waxaa la imika ma hubtaa inaad kuwan dhammaan aad ugu kaydiso halkii maxaa laga soo masaxay adoona ka diray recycle bin-ka. haddii aan yes dhaho si toos ay u bixi doonaan waxayna aadi doonaan halkii lama kor laga soo tiray. sidoo kale waxaa dhiman hal qayb. tusaale haddii aan tiro new folderkan oo aan delete dhaho recycle bin-ka ayuu aadayaa. recycle bin-ka markii aan soo furno waxaad aragtaa waxaa ku jira folderkii aan soo tirnay. folderkan aan soo tirnay sidaan hore usoo aragnayba labadaas qayb oo empty recycle bin wuxuu ahaa in dhammaan recycle bin wax ku jiro dhan la faarujiyo. ka kale wuxuu ahaa recycle bin propertieskiisa ama dabeecadaha ama astaamaha uu leeyahay oo dhan in wax laga bedelo. labadaas qayb waxaa la isku dhahaa manage, waa maamulidii waaye in la maamulo recycle bin-ki qaabka uu noqon lahaa iyo qaabka uu shaqay lahaa. qaybtan kale ee loo yaqaan restore-na waa dib u kaydin waaye in dib loo kaydiyo waxyaabihii la soo tiray. ka koowaad waa in hal mar dhammaan dib loo wada celiyo waxyaabihii la soo tiray oo dhan dib loogu celiyo meesha ay ka yimaadeen. balse kan dambe kaliya waa hal shay in dib loogu celiyo meesha laga soo tiray. mararka qaar waxaa suuragal ah in qofka uu fahmi waayo shaygan uu soo tiray halka uu ka soo tiray. marka waa fawda isaga dul istaag shayga waxaad ku dhuftaa dhanka midig kadibna waxaad doorataa qaybta ugu hooseysa loo yaqaano properties. kaas waxaad ka ogaanaysaa dhammaan astaamaha uu leeyahay shaygan aad soo tirto dhan. shaygan horta marka hore noociisu waa folder waaye halka uu ka yimidna waa laga soo tiray waa desktop-ka. size-kiisu waa 0 byte oo waxba kuma jiro waa eber. xilligaana waa la tiray xilligaana waa la abuuray. marka dad u baahantahay dib u celiso keligii waxaad leedahay restore kadibna wuxuu shaygu dib u laabanaya halka laga soo tiro desktop-ka ahayd. marka aad halkan desktop-ka imaatana waxaad arkaysaa new folderkii inuu dib ugu soo laabtay halkii marka hore laga tiray. waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad ka faa'iideen wax badan aad ka barateen waxa loo yaqaan recycle bin-ka iyo qaabka loo isticmaalo. waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.